هوجان عيد عدوى هدن عطها قبيش وعليل دينو وروين كورمانو عدو هيرانيسي علنكاك واهبو شرفكو هجوجان عيد عدوى هدن عطها قبيش وعليل دينو وروين كورمانو عدو هيرانيسي هيبت وحا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى آديات مالكم كون رسول سلام يا هباق سكلي سلام يا أبادر يردمان لورد مايركا ميركا دمان تدوينها دقن عاصمته بريستول فنهانتي ضد وناكسنا سلامتها كبعدي حتى وري حرقه رنتي ورنينا دفعنا انت كبعدي وحنا ليهاي waxaan nimi safar baan nimi safarkaan nimi shalay toolaan ku nimi magaalada Bristol run ahaantii aba guud ahaan UK ba run ahaantii safar aad u wanaagsan shakhsiyaadka aan la ilaabi karin ee qarankan Ingiriiskana ku suntan ka Soomaaliland ku suntan wax qabad kale run ahaantii oo ay ka tahay hibaa run ahaantii oo imika council-ka ah oo una magacaabay mayorka Martin inay noqoto international trade market run ahaantii leader inay iyadu noqoto وكويمي كرسي أنت هالك نعم بوسيش كأنت هالك كونسل كذا دعنا وكويمي مركي اللي قالوا رجال رنهانتي ميركي كل جاها حسب كتير سنين رنهانتي حسب كل ليبر كويم كقبصدي أي كويمي مارفين رنهانتي أو أنا كنا عن كلنا حلقة أو كانديديت كها إما كنا مرلا بعض عن كلنا يسقو مير بقى وها نكاس أيها كده جه بعض مكا trade and investment ambassador ويان رنهانتي كونسلر رباق وحويان international trade and investment ambassador كونسلر رباق on آدياد مهنقيو آدياد على سوكو بكرين مهنقيدا شخصي وحتر لأ شخصي هدي جرد عدا أو قبض له أو عنداله هين أو إني ضدك ضلك كنوا وحقبته ضدك ضلك يشوفونه وحقبته هدي جرد دورسي باقويان رنهانتي وحن كل شرير هذا وين إن أبارها ضدك لقى عاويو إن وضعكي وحلقوا عليو إما كواحد كسوق قال لي شلت درات ولا شربان قال لي شركة درات قال واحد وهالشركة دي هذا مهمة أو أنو سدح جيسودة لورد ماير كي بريستول ماير كي بريستول رنهانتي أو أي لبضبا رنهانتي يو هباق يو رنهانتي أباد روكله وحلقوا ده هذي إن سدي ضدك أخبارها وحلقوا قبل لها الدب لوق عن علي لها أي كيف عاوة طاون صار عاوة إذا لقاها الله يا باريا ركاسودن وحاسو شرا waxa qabatay oo qaban qaabisay oo isku dubariday councilor hibaa runanti waxaan aad iyo aad soo koobi karayo maaha hibaa taariikhda ku xusi doonta ilaahay baad jirka heli doonta dadka aad isku dhibayso ee aad jeceshahay kuwa halkan joogan inay wax noqdaan kuwa halkii joogin in loo gargaaro runanti waxaan maantana ka soo baxnay shir aan halkan ku daawo doontaan oo arki doontaan oo aanu la galay damdamisyaashii oo dhan runanti ama fire brigade-kii waxayna tuseen qalabkoodii waxayna tuseen xafiisyadoodii ilaa iyo jiifkiyaga haystay waxaan isku taraagaraynay in aanu bal wadankii iyo halkan saan isku xirileyn markii horena doorkii horena waan kala hadalay doorkana waan kala hadalay waxaanu sameynay inay bal wadankii yimaadaan oo ay inta yimaadaan Somaliland ay arkaan markay arkaan ay wax la qabtaan imika wadamo kale 20 sano ama 25 sano xiriir lahaayeen sida wadanka Gaabiyo oo kale way ka caawin jireen wax walba weyn iyaga siin jireen xiriir bay lahaayeen way tagi jireen shaqaale u tababari jireen inay inaga inta yimaadaan Somaliland shaqaalaha u tababaraan shaqaalaha wax la qabtaan in dhismayaal sameeyaan qalab cusub oo fiican siiyaan run ahaantii oo aanay siinin qalab iyagu ka baxeen oo aan halka marka la geeyay soconinba oo ay siiyaan qalab fiican oo anfacaya oo sumcadoodana ku ciyaarin Somaliland ay si cajiib u soo dhaweey doonto wax qabad wanaagsan weeye oo wax qabad dadka masaakiinta ay wax loogu qabanayo oo run ahaantii intaas oo gaadhile oo shaqaalaha halka ay ma doonaan Somaliland halka lagu tireeri garin doono madaxda dabdamiska Somaliland halka ay ma doonto kuwana ay halka ka tagi doonaan xiriir walaaltinimo dhow dhex mari doono waxaan ku rajo weynay
imanka maadaama gaadho xilligii dalkaasi ay ka dhammaanaysay hore ku jiray inay halkaa gelayso Somaliland halkii Gambia ku jirtay inay Somaliland gelayso waana noo ballan qaadeen waana iman doonaan iyagii oo hadlayna waanu haynaa run ahaantii oo farxadda inta la inoo sheegaya laakiin yaa guusha waxa iska leh run ahaantii dadka halkan jooga ee wax ka noqday ee dadkii halkaa joogana u damqaday run ahaantii jecel la inay dadkaana wax lala qabto jecel in maanta abaaraha jira in dadkii loo yeero tijaartii iyo dadkii wax ahaa oo loo yeero saddex geesooda oo shir kasta loo yeero dadkii wax loo qabto waayo waxa jecel qof siyaasadiisa iyo mustaqbalkiisu fog yahay waxa jecel qof dalkan iyo dadkan doonaya inuu wax u qabto dalkii iyo dadkii uu ka yimid doonaya inuu wax u qabto waayo qofkaasi jawaahi baa ku garabkayga taagan aad iyo aad ku soo dhawahay baa جزاك الله والله عبد العزيز عادي عبد المهندسين تهاي waxaan doonayaa inaan aad iyo aad adiga kuugu mahadnaqo runtii inta badan waan arkay dad badan oo wadankii ka yimaada oo yimaada laakiin waxa aniga had iyo jeer igu xasuus dheera inaan marka ay yimaadaan ina had iyo jeer diasporaha amba dadkii communitygeena ahaa ina waqti badan la qaato oo laakiin se aan la isku sii xaluujin ina lala kulmo dadka magaalada awoodda ku haysta dadka magaalada u taliya iyo runta haddii la sheego dadka dee isbeddel aad u weyn oo fara badan waddanka u keeni kara Somaliland marka maanta aad waxaan ugu faraxsanahay iyadoo waddankii ay abaara ka jirto iyadoo dhibaato kale fara badan ay ka jirto ina aynu chance u helnay ina hadal muhiim leh inuu idin dhex maro adiga iyo Lord Mayorka oo la oran karo waxa weeyaan qofka koowaad ee magaalada Bristol Lord Mayorka sidoo taariikhda ku yahay iyo elected mayorka Maayar oo isaguna uu yahay siyaasiga ugu awoodda weyn magaalada Bristol amba oo la oran karo gobolka South West kasoo ko meesha dabdamiska waxaynu la kulannay tiimyaal fara badan oo tusay inay iyagu maanta 2017 magaalada Bristol dhibaatada ugu weyn ee haysataa inaanay ahayn qof meel ku gubtay iyo ku ololay laakiin ay tahay dadka gawaadhida inta ku socdaan meel ku duqeynaya amba laba gawaadhi isku dhacayaan oo bini aadankii markaa ay ka badbaadi la kari la yihiin birtan gaariga ah ee marka ay qalibmato aad iyo aad u adag waxaa lagu tusay markaa magaalada Bristol sida looga sii hortegayo ina dadku ay aad ugu dhintaan gawaadhida oo lagu sheegay inay kaba badan tahay dadka dabka ku dhimanaya waxaana idin sheegtay markaa ina waddankii Somaliland ay dhibaatadaas mid leega ay jirto ina gawaadhi ay ka soo dhacaan meelo waaweyn inaan dadka dib loo ogin waayo qalabkii baan lahaynin waxaana aad ugu faraxsanahay inaad la kulantay station managerka Andy la yiraahdo oo uu ku soo bandhigay qalabka oo dhan uu sheegay qiimahooda uu sheegay faa'iidadooda adiga laftigaagu aad aragtay sida loo isticmaalayo iyo inaad shirka si muhiimsan aad la gashay chiefka u sareeya dabdamiska amba badbaadintaba ee magaalada Bristol oo kaliya maaha ee South West regionka Ingiriiska oo dhan marka runtii imaatinkaagan waxaan oran karaa waa imaatin aad iyo aad u nasiib badan waxaanad la kulantay dadkii ugu awoodda weynaa ayaan anigu isleeyahay South West oo dhan uguna haystay dad aad iyo aad u tiro badan oo u dhagan marka waxaan ku faraxsanahay sida waddanka Soomaaliland uga hadashay sida dhibaatadiisa u sheegtay sida abaaraha iyo dadka dhimanaya aad maanta nin kasta ama gabadh kasta oo mas'uula xafiiskeeda inta ugu tagtay inaad taabsiisay dadkaaga dhibaatada haysa taa wax loo mid dhiga horta ma jirto mid anigu aan qaban karayna maaha waa runta anigu Somaliland waan u dhashay waan ku faraxsanahay inaad ku sii xaqiijisay aad u sii sheegtay dadkii aynu la kulannay madaxda ahayd in anigu Somaliland aslan aan ka soo jeedo iyadoo taas ay jirto haddana waxa ka sii fiican oo ka sii qiimo badan adigii oo ah qof siyaasi ah oo intaas oo kun oo qof mas'uul ka ah inaad maanta siyaasiyiin kale oo Ingiriis inta la fadhiisatay aad kaga warantay dhibaatada adiga dadkaaga haysa oo ay kula dareemeen ay kuugu ballan qaadeen inay ku yimaadaan inay wax kula qabtaan aad iyo aadna kuugu appreciate gareeyay waxaan ku leeyahay waad mahadsantahay Cabdi Casiisow ummadii Somaliland oo dhan proud baad ka dhigtay aniga kulay magaalada keligay baa Somali councilor ka ah marka abaarahan markay dhacaan
waan kala hadli karaa anigu siyaasiyiinta oo dhan haddana aniga awood dheeraada bay sii siinaysaa waana iisii fiican tahay marka adigoo socda aad timaadid oo aad dareensiisid dadka marka aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahay abaalkaas iyo Thank you. Less getting coming down because of the safety system. That's purely why. We're driving more cars with this one. I'll tell you what, Jay. There's a bit of metal that's exposed there, which Yeah, there you go. Yeah, there's a magnet under here. That's actually not bad. Okay. Yeah. Okay. How far can you get that seat back? this seat, this is what moves the seat back. So just still put the gloves on. Right, come on, chat. Yeah. So you made a massive hole now. Anything goes wrong, he's coming straight out. You come right in close now. This is Darren, trauma instructor. Can you understand him? He's got a funny accent. I know, I'm from Darren will talk to you about what he's looking for in this casualty, which then governs what we do. So just come in and have a chat with Darren and he'll tell you what's going to happen. It's all safe now. Yeah, the first thing we do is look at the mechanism of injury. So if there's a giant impact and they've been going at high speed, then the sort of injuries that the chap could get could be, you know, like severe fractures, punctured lungs, ribs, C-spine injuries. So all those things are considered, and then we put like a neck brace on him, we'll give him oxygen, and it's also that when we hand it over to a paramedic, we haven't sort of done any further damage. Hopefully we can help promote his recovery. So that's what we're doing here. We just got the oxygen on here, so neck brace, and basically we want to limit the movement when we're taking him out as little as possible. So in a minute we'll get this long whiteboard into the back of the seat, lowering down very, very gently, and then with minimum movement just try and slide him up the board and get him out. So there's no risk of damaging the neck. If we damage the neck, with all the nerves that come down from there, you know, can affect the breathing. It's very serious, so we'll try and do it as smoothly as we can. Can I ask him a question? Yeah, sure. How do you feel? How was that as an experience? It is different. It's sort of, you can't see what's going on because of the colour and stuff. You can't actually see what you all you can hear is noises and stuff. So you can't turn your head. So, I'm hoping it felt a lot better than it looked, but I suppose it's reassuring if you're in that position and you've got someone talking to you. That's really what you want. having someone in the car is a good bit. Well, And having a designated person, that's so Amazing. I was surprised if he speak. We forget a lot because we do this every day. Yeah. That's the only time this is going to happen, to be honest. And they are scared, you know what I mean? So it's quite important to keep talking to them. Reassure them, really.
The Turks cross their fingers and hope for the best. Oh my God. This is honestly so inspiring. But we're going to get him, we'll have him straight at the back now if you want. We'll see the rest of it. Yeah, that is something we have to remember actually, because sometimes you look at the cases and you do realise how scared they are. Do we come in the back? It's awful, isn't it, when you do it? Yeah. Well, challenge looks like this board. Breaking back, so it's going to be a little bit like that. Oh, yes, for you. But it's not to them, is it? It's A bit of a car door. One of the things we have to do then is that that person constantly angry and that life continuing. We've got visors as well. So we've got the visors. He makes himself Far less down as it goes on. Yeah, I've got it. everything's turned off now. Everything's not boiled, gets out of the way. It's all down to that bloke there now. How's about us? I think you guys are all right. I think we have to skills. I think we got another. We got another one, have we? Oh, do you want me? I'll just look at the net. Do you want me to take it from here? You and Del pull it on. I can get right. One hand on, two hand on. I got the head. Handling in. Alright, so what we're going to do is just go foot up the spine board. Or the backboard even, or whatever. So on me then. This. Ready, break, move. Around, holding, Rest. training. Right, now that kind of You guys let me know when you want to go down. Okay, a little bit more left. Right, so same again, another foot. Ready, break, move. Alright, next I think we can lower now. Okay. Ready, out that Jim, alright? Out the car, I can't really do a lot more. No, I'll go around and take it. Taking the head down. Yeah, I've got the head. Ready, brace, move. Okay, we've got about another foot or so for us. You need to push against that, okay? Right, that's it. Ideally, ready, brace, move. About 6 inches of move there. Ready, brace, move. That's good. Right, I have to come off now. You can all come out. Heels on. So we need to see on the news, We need something in here because it's going to bump off the seat. What we need, yeah. I see, that makes. I was wondering where that seat's gone. If we can just slide the ball back up here. There you go, Tom. Rest there, rest there. Dan, do you want to come round? Yeah. Just going to bounce off here. Yeah, no, rest there, rest, don't pull it. Yeah. No, I'm just going to the edge of that. Right. Jay, do you want to come round, mate? You can have me if you want, mate. Yeah, if we get on the flat bit. If we get Jay to get us down to that bottom portion. Okay then, let's move down to the flat bit, move. Gently, gently. Beautiful. Okay, we can slide from here. Straight in the ambulance. Ready, brace, move. How's that goes? Fantastic. Here, thanks, Tom. Thanks, fellas. How's your neck, Tom? Good, it's the back, it's a bend over that seat. You want to move down again? That's what I thought, that's what I thought. We didn't need to come out the back ready for that. That's a massive hole now. We could all get Good, quite happy. Congratulations. No, thank you. How many of these have you been involved in? Oh, a few. Yeah. These wrinkles there just to the old one. One that I quite enjoy is just, How much is this? with this cost. You want to know? 650 get the figures. And how many different tasks can it perform for that amount of money? This one's got quite a few capabilities. It's 32 metres long, so it'll go 110 foot. It's got articulated knuckle on it, so we can go over buildings.
It will lift up to 4 ton, given if it was able to. The front of the cage removes so we can actually carry casualties up to 300 kilos, so it's 40 plus stone bariatric casualties. Bariatric rescue is something we're getting more and more involved with society, you know, the way it is. More and more people that you just can't lift. And so yeah, 40 stone, I mean that's bariatric is classed if you're over 25 stone. So it creates massive issues for us and our well-being, because generally they're upstairs in the bedroom, they've had not been, they might have been bedbound for years, suddenly have a medical issue, and then the medical teams, the ambulance service need to say, can we get them down? So we end up helping. So we've had to try and modify our equipment to be able to take that sort of weight and not damage our back.